Soomaaliya dad badan waxay isweydiiyaan mar haddii Soomaaliya madaxweyne Soomaaliyeed jiro labada madaxweyne hadda waad leedahay baarlamaanka Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed soo arag bixin looma baahnaan lahayn Soomaaliya hal madaxweyne leedahay madaxweynayaasha kale in arag bixin kale loo sameeyo ila ma jiro adduunku meel madaxweyne iyo madaxweyne iyo madaxweyne iyo madaxweyne toddoba madaxweyne waa inay kala magacaabo yihiin marka madaxweynaha Soomaaliyeed federaalka ah magac bixintaasi isaga iskale laakiin soo kuma habooneen in magac bixin kale la sameeyo runtii dadku waaba ku sheegayaan waxay ku leeyihiin hogaamiyayaasha gobolada hal la yiraahdo haye hogaamiyayaasha dadka ku dhahay haye wax hadda awoodaho uga halaabayana oo ka dhumayana ma jiraan isla markaas erabixintii marka isku qaldoomi maayaano qofkii marka madaxweynaha qaranka ma ogtahay haddii madaxweyne la yiraahdo in madaxweyne laga reed yiraahdo waxa waaye waa arrin oo challenge ku ah magacaas runtii marka arrintaasi inkastoo ay dastuuri tahay oo dowlad goboleedyada mataqaanaa hadda maxuu ahay aan wax maanacaya aysan jirin qodob diidaya in madaxweyne la yiraahdo aynan jirin oo referensiga meesha laga wato ay meeshaasi jaanis ka abuuran yahay haddana waxaa fiican sida aad ogtahay qodobada quseeya federalismka waxaa kamida in oo baarlamaanku oo dowlad goboleedyada oo nidaamka loo baahan yahay oo meel mariyo marka waxay soo geli kartaa marka xilligaas in marka loo era bixiyo baarlamaanka waajibaadka uu leeyahay ayayna kamid tahay marka taasi saasaa lagu xallin karaa aan isleeyahay aad u mahadsan tahay waa kugu soo laaban doonaa cabdi baraye waxaan farta u taagay su-aashaas madaxweynayaasha aad weydiisay waa runtii horta salaad ba hadda su-aashay ga qaatay anigu waxaan qabaa meel haddii madaxweynihii qaranku tegey madaxweynihii dowladda federaalka in nimankii maamulada jooriya madaxweyne la yihahdo haddii markaad madaxweynihii tiri madaxweyne markaad tidhahayd kii kaloo maamulgoboleedka ku soo fiirinaya inuu asaga madaxweyne u qaadanaya marka arrintaas maadaama dastuurkii ku meel gaar yahay waxay u baahan tahay saxid federalismka loo saxo oo laga bedelo arrintaas maaragtay madaxweyne laga bedelo sida caalamka wadamada federaalka maamul goboleedyada iyo dowladaha hoos yimaada waxay gidigooda leeyihiin waa barasaab oo meesha xukuma waxa weeye gomarr baa la yidhaahdaa ama barasaab meesha xukuma taasuna waa imaanaysaa dastuurkan ku meel gaarka haddii la soxo marka taas in sidaas loo fahmaa fiican maadaama haddii dastuurkiina ku meel gaar yahay qabiyo yahay dastuur ku meel gaar yahay federalismkii weli aan sidii tooska hel rabin loo horgelin uusan dalkii si fiican ugu fidin oo weli dastuurkii qabiyo yahay doorasho hal qof iyo holqod aan la gaarin waa nin walba wuxuu rabaa dee maamulka madaxweyne in la yihahdo rabaa laakiin waxa wax sixi doonaa waxa weeye markii dastuurkan afti loo qaado federalism dalka ku hormaro markaas inta ka horeysa nin walba madaxweynihiisa tunka isaga istaago laakiin ma qurux badna madaxweynihii qaranka oo wadanka marhaya in xataa la yidhaahdo ay calamadii xataa is agdhigaan labadii calan oo maarata si laba madaxweyneha kale isqaabiloo kale madaxweyne calanka lasoo agdhigo taasuna waxyaabaha xoogaa dadku runtii ay aada uga hadleen bay ahayd oo ma fiicna haddii madaxweynihii qaranka meesha tegahayo dowladda soomaaliya federaalka tegahayo calankii maamul goboleedkan in maamul goboleed isoo hordhigo madaxweyne gaara isu muujiyo taasuna ma fiicno waa waxyaabaha u baahan maaragtay baarlamaanka inuu saxo